Suldaan Maxamed Xirsi Qani oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Somaliland ayaa habeennimadii xalay tola ahayd waxa sidkadiisa ugu soo booday xanuun waxaana xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay cisbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa. intaas kadib Suldaan Maxamed Xirsi Qani ayaa xaaladiisa caafimaad waxba lagaga qaban kari waayay cisbitaalka Haldoor iyo waliba magaalada Hargeysa waxaana la sheegay inuu u baahan yahay dhakhtar dibadeed waxaana markii dambe loo qaaday dalka Itoobiya iyadoona ay xukuumadda Somaliland u dalabtay diyaarad khaas oo lagaga qaaday garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. intuu Suldaan Maxamed Xirsi Qani xaaladda caafimaad u yaalay cisbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa waxaa cisbitaalka ku soo booqday mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Biixi saraakiil salsaro oo ka socday xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo uu horkacayay gudoomiyaha xisbigaasi Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro salaadiin cuqaal iyo dad kale oo aad u tiro badan waxaana ugu dambeyntii garoonka diyaaradaha ee Cigaal warbaahinta kula hadlay salaadiin ku sugnaa goobtaasi waxayna u mahad celiyeen xukuumadda madaxweyne Biixi waxaanu imika ka soo dhaqaaqnay oo halkan ka bixinay ilaahay caafimaad sareecana ha siiyo oo loo qaaday waddanka Itoobiya Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo shalay taxan ku soo booday madaxa ah marka ilaa xalayto looma kala bixin xukuumadda dawladda wasiirada sida madaxweyne Sacad iyo Maxamed Kaahin wasiirka caafimaadka gudoomiyaha isagoo xisbiga wadani sidii shalay taxanuunkaas ugu dhacay suldaanka iyo ilaa saacadaas oo imika warda sabab aan baxay looma kala hooyanin iyo islaam kale fara badan ummadda reer Somaliland ee xalay hortubneed dhakhtarka Haldoor waa ummadda cajaayib bay ahayd hilowga meesha ka muuqday iyo kalgacalka qofka shamaca ah ee ummadda maartay danteeda caamka ah isu taaga ee maartay shamaca ugu gubta ayaana ixtiraamka iyo tixgelinta iyo baroordiiqda iyo magaranaysa kalgacalka leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay caafimaad sareecana siiyo in isagoo cagiisa ku socdo si dhaqso ay noogu yimaado waxaanu mahadnaqaynaa mahad aan la soo koobi karin ilaahay inta ka sokaysa mahad koobaad ilaahay baa leh mahad aan la soo koobi karin waxaanu u jeedinaynaa xukuumadda madaxweynuhu ugu horeeyo golaheeda wasiirada ragga sida gaarka ah ilaa shay markii suudaankaas xanuunsaday aan shaqadoodii qabanin wasiir Maxamed Kaahin iyo Sacad Cali Shire iyo wasiirka caafimaadka iyo ragga kale ee ayaanta aan tiriyayba waxaanu leenahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxa weeyaan waxa muujiseen qofka ummadda u dhaxeeya ee wanaaga ummadda iyo nabadgelyada iyo midnimada ka shaqeeya ixtiraamkii iyo sharaftii uu lahaaba muujiseen naf iyo maal waxba kala meedaan halin ilaa haddana waxaynu isku ognahay in wixii dambe ee xaaladiisa soo kordhana heegan loo wada ahaado hadduu meel kale loo sii qaado u baahdo iyo haddii uu halkaa u tagayo ay tahayba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazakallahu khayr isagana waxaanu ilaahay uga baryaynaa caafimaad sareecana in ilaahay siiyo degdega waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay caafimaad taam ugu bedelo isagoo soconayna ilaahay nabad noogu soo celiyo shacabka reer Somaliland meel kasta joogaan iyo ummadda Soomaaliyeed ee garanaysa Suldaan Maxamed Xirsi Qani waxaan ugu baaqay inay u soo duceeyaan oo ducada ugu hiiliyaan ilaahay saasuu ka baryaynaa in ilaahay isagoo caafimaadkiisa qaba ilaahay noo soo celiyo sidaa la sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa annagoo ku hadlayna afka shacabka reer Somaliland shacbiyada oo dhan ma sida fiican ee hagar la'aanta leh ee xukuumaddu isu garab taagtay suldaankooda ee hiil iyo hoob isu garab taagtay hadday tahay madaxweynaha hadday tahay wasiirka maaliyadda hadday tahay wasiirka dakhliga hadday tahay gudoomiye baan hadday tahay gudoomiye maxaa wadani dhammaan asxaab iyo shacabba uga mahad celinaa dhankiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire waxaana uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay suldaanka xaalad caafimaad ugu qaaday dalka Itoobiya aan bixinay galabta oo xaalad caafimaad ku sii sawirtinay suldaanka Suldaan Maxamed Xirsi Qani suldaanku waa nin runtii aad iyo aad qaranka qaali waa nin qaran weey waa nin qiimo leh waa tiirarka waaweyn ee runtii ku taagan tahay Somaliland ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socday in si dhaqso ah uu inoogu soo noqdo waxaan halkan uga mahad celinayaa intii suldaanku xanuunsaday runtii ka hawlgashay u ducaysay u timi soo siyaaratay sii sawirtay intaan runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ducadeena ha aqbalo waxaan ugu soo celiyay suldaanka isagoo caafimaad qaba Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen telefishinka Real Hargeysa